السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha lahow ku soo dhawaada kanaalka Janaale Media. Kanaalkan wuxuu idiin soo bandhigi doonaa arrimo fara badan oo ku saabsan hanuuninta dadweynaha iyo ka hadalka iyo falaqaynta arrimaha siyaasadaha geeska Afrika. Marka mawduucyo fara badan oo kala duwan ayaan ku soo qaadan doonaa oo aan ku falaqayn doonaa kanaalkan. Marka waxaan idinka codsanaynaa marka aan wararka falanqaynta iyo faalooyinka iyo warbixinada idiin soo gudbino inaad noogu dadaashaan inaad qaybisaan like-ta saartaan share garaysaan isla markaasna bogagayada Facebook-ga iyo YouTube-ka aad subscribe saartaan waad mahadsantihiin. mawduucan maanta aan ka hadlayno wuxuu ku saabsan yahay kala saarista awoodaha dawladda ama dawladnimada. Sida aad la socotaan nidaamka dimuqraadiga ah ee maanta adduunku uu ku dhaqmo wuxuu soo maray waqti dheer iyo marxalado kala duwan marbana heer ayuu soo marayay. Markii ugu horreysay ee fikradaha dimuqraadiga ah ay soo ifbaxday waxay ahayd ilbaxnimadii hore ee Greega muddo hadda laga joogo 2000 oo sano kadib fikradaasi way iska baaba'day duruufo iyo xaalado jira dartood. Markii dambe fikradihii dimuqraadiyadda iyo dadku inay xor noqdaan oo dadkuna ay doortaan qofka xukumaya nin duubcad soo xidhay uusan dhihin anaa idin xukumaya uusan dhihin waxay fikradahaasi soo ifbaxeen qarnigii 16aad iyo qarnigii 17aad. xilligaas oo ahaa xilligii ay dadka reer Yurub ay baraarugeen ayna bilaabeen inay ka fikiraan inay dadku fikradahooda ay xor u noqdaan. Marka dadku berigaasi waxay la dhibaataysnaayeen xukunno adag boqortooyooyin xoog badan oo iyagu sharcigii ah oo wax walba sameeya iyo kaniisadda iyaduna xoog badnayd. Marka dadku waxay ku jireen xaalad caburin ah oo adag bay ku jireen. Markii dambe xilligii baraaruga ayaa bilaabanaya marka dadku waxay ka bilaabeen inay ka fikiraan horta boqorkan xukumaya xoo yahay xoogan uu ugu xukumayo xaguu ka keenay sharcigan xaguu ka keenay. Marka waxa bilaabanaysaa niman filosofiyiin ah oo mufakiriin ah inay soo jeediyaan in ay hoos u dhigaan awoodaha faraha badan ee boqoradu ay leeyihiin. Markaasi waxay soo jeediyeen in nidaamka xukunka la kala qaybiyo si awoodda boqorka ay u yaraato. Marka hadda waxaan soo diyaariyey warbixin aan rabo halkan inaan idinka soo jeediyo. Sida uu tilmaamayo sawirkan waxaa la yidhaahdaa balance of powers macnaha awoodaha in la kala qaybiyo. Marka awoodaha waxaa la soo jeediyey in loo kala qaybiyo awoodda fulinta executive powers iyo awoodda sharci dejinta legislative powers iyo awoodda maxkamadaha iyo cadaaladda. Sababta sidaa loo yirina waxay ahayd xukunkan adag oo kelitaliska ah oo boqorradii berigaa jiray ay haysteen maantana xukuumadaha kelitaliska ah ay haystaan in xukunkaasi la kala yareeyo oo qofna ayna u suuro gelin inuu xukunka xoog ku haysto oo uu noqdo dictator kelitalis ah inuusan qofna noqonin. Marka waxaa loogu talagalay in hay-adahan saddexda ah ee meesha ku sawiran ay iskontaroolaan oo ay isla xisaabtamaan ayaa loogu talagalay. Marka awoodahan saddexda ah ee la kala qaybiyey waxay ka jiri karayaan saddexda heer ee dawladnimada kuwaas oo kala ah heer degmo local level, heer gobol regional level iyo heer qaran. Sababta oo ah dawladnimadu saddexdaas heer ayay kala tahay. Saddexdaas heerna waa in awoodahan la kala qaybiyo dhammaantood. Haddaba fikraddan filosofiyiintii soo jeediyey waxay kala ahaayeen John Locke oo Faransiis ahaa
oo markii u horreysay 1690kii soo jeediyey awoodda boqorada in la dhimo awoodahana la kala qaybiyo. laakiin filosofka labaad oo ah Montesquieu oo ahaa nin Faransiisa ayaa si cad oo qeexan u soo jeediyey in awoodahaas la kala qaybiyo. haddaba nimankan filosofiyiinta ah waxay soo jeediyeen in saddexda qaybood ee loo kala qaybinayo awoodaha dowladnimada qayb waliba shaqada ay leedahay bay halkan aan ku soo qoray. tusaale ahaan jadwalka dhexe waxaa ku qoran awoodaha ay leedahay hay-adda fulinta. qaybta midigna waxaa ku qoran awoodaha ay leedahay maxkamaddu. jadwalka bidixna waxaa ku qoran awoodaha uu leeyahay baarlamaanku. marka saddexdaas hay-adood mid waliba waxay leedahay shaqooyin u gaar ah oo ay qabanayso oo ay ku koontaroolayso qaybaha kale ee awoodaha isla markaasina ay qaranka u qabanayso. tusaale ahaan hay-adda sharci dejinta waxyaabaha ay qabanayso waxaa ka mid ah in sharciyada ay ansixiso iyo in ay ansixiso miisaaniyadda dowladda isla markaana xukuumadda ay ku koontaroosho in xukuumaddu ay fulinayso sidii baarlamaanka uu u soo qorsheeyey in loo qaybiyo miisaaniyadda dowladda. dhammaan lacagaha hadday ahaan lahayd lacag waddan ka soo xarootay iyo lacagaha deeqaha ah waa in la soo geliyaa miisaaniyadda dowladda waana in baarlamaanku uu ansixiyaa. waxyaabaha kale oo baarlamaanku uu qabanaya waxaa ka mid ah in baarlamaanku uu ku dhawaaqi karo dagaal haddii waddanka lasoo weeraro. sidoo kale hay-addan sharci dejinta ama baarlamaanka waxay xaq u leedahay inay koontaroosho xukuumadda oo baarlamaanku uu yeedhi karo madaxweynaha ama xubin ka mid ah wasiirada ama hay-adda fulinta oo markaasna baarlamaanku uu su'aalo weydiiyo isla markaana baarlamaanku wuxuu xaq u leeyahay in uu xilka ka xayuubiyo oo madaxweynaha dheh ama ra'iisul wasaaraha ama wasiirada ama qof kale oo ka tirsan hay-adda fulinta hay-adaheeda kala duwan. waxaana la qaadaa waxa loo yaqaana xaqa kalsoonida oo baarlamaanka uu leeyahay. sidoo kale baarlamaanku wuxuu xaq u leeyahay inuu ansixiyo heshiisyada ay xukuumaddu la soo gasho waddamada dibadda ama shirkadaha ay la soo gasho. waxyaabahaasoo dhan waxaa xaq u leh hay-adda sharci dejinta oo ah baarlamaanka. hay-adda fulintu maxay qabataa? hay-adda fulintu waxay qabataa go'aamada uu soo gaadho baarlamaanka ayay fulisaa. shaqadeeda ugu muhiimsan waa taas. sidoo kale waxay ka shaqaysaa adeegyadii dadweynaha sida waxbarashada, caafimaadka, difaaca, diblomaasiyadda, wax alla wixii shaqo fulineed ah ee loo baahan yahay waxaa qabata hay-adda fulinta. laakiin hay-adda fulinta waxay ku qasban tahay mar walba inay ka amar qaadato oo ay si dhow ula shaqayso hay-adda sharci dejinta oo ah baarlamaanka ama kongareeska oo u kala qaybsan golaha senadka iyo golaha baarlamaanka labadaba. hay-adda fulinta waxaa qasab ah heshiis kasta oo ay soo gasho inay u keento hay-adda sharci dejinta. maxkamadaha marka maxay awood u leeyihiin? maxkamaduha waxay awood u leeyihiin in ay sharcigii la soo saaray tarjumaan, inay sharciga fuliyaan, inay go'aano qaataan ku saabsan kala saarista muranada dowladda iyo shirkadaha, dowladda iyo shakhsiyaadka, muranada u dhexeeya shakhsiyaadka dhexdooda, in maxkamaddu ay xukunto dadka dembiga gala iyo in la kala saaro muranada u dhexeeya dadka. waxaana hay-addani shaqadeeda ay u qabsataa waxay leedahay maxkamado kala duwan oo heerar kala duwan ah oo ka soo bilaabanaysa heer degmo, heer gobol ilaa heer qaran. marka maxkamaddu darajooyinkaas ayay kala leedahay waxayna leedahay qaybo kala duwan oo qayb waliba shaqo gooni ah ay qabato. haddaba
yaa kala ah hay-adahan yaa ka tirsan tusaale ahaan hay-adda sharci dejinta waxaa ka tirsan baarlamaanka oo ah golaha wakiilada sanadka oo ah golaha senatarada sidoo kale hay-addan baarlamaanka waxaa hoos taga bangiga qaranka iyo hay-adda hantidhawrka qaranka sidoo kale waxaa hay-addan hoos imaan kara hay-ado kale oo ay ka mid tahay hay-adda doorashooyinka iyo hay-ado kale oo baarlamaanku uu hoos keeni karo baarlamaanka golaha fulinta yaa ka tirsan golaha fulinta waxaa ka tirsan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wasiirada iyo hay-adaha dowladda hay-adaha difaaca hay-adahaas oo dhan baa ka tirsan waxaana loo baahan yahay hay-adda fulinta in hal meel laga xukumo tusaale ahaan waxaa jirta baryahan muran badan oo u dhexeeya Soomaalida oo ah in hay-adda fulinta la kala qaado sida hay-adahan hadda aan soo sheegnay loo kala qaaday oo kale waa khalad arrintaasi sababtoo ah filosofiyiintii nidaamka dawliga ah ee dimuqraadiga ah soo alifay ma ayna dhihin hay-adda fulinta ha la kala qaado oo awoodaheeda ha la kala qaybiyo oo gobollada iyo beelaha ha qaybsadaan sidaas ma aha hay-addan fulinta dhowr nooc bay yaa loo sameeyaa mar waxay noqon kartaa hab baarlamaani ah oo ah hay-adda fulinta inuu soo doorto baarlamaanku habkaas waxaa ku dhaqma waddamada Talyaaniga Hindiya waddamadaasa ku dhaqma marka ra'iisul wasaaraha ayaa awood badan leh madaxweynuhuna waxa weeyaan madaxweyne simple ah oo calaamad iyo ramsi u ah dalka awood fulineed ma laha madaxweynaha nidaamkaas waa nidaamka baarlamaaniga ah la yiraahdo wuxuuna ku yimaadaa marka hore baarlamaanka la soo doortaa dabadeedna baarlamaanka ayaa ra'iisul wasaaraha doorta habka kalena waa habka ri'aasiga ah waa habka madaxweynaha tooska loo doorto sida Mareykanka iyo Faransiiska marka madaxweynaha wuxuu yeelan karaa ku-xigeen wuxuuna la shaqeeyaa madaxweyne ku-xigeenku madaxweynaha ayuu la shaqeeyaa haddii sida Faransiiska ra'iisul wasaare la doortana ra'iisul wasaarahaasi madaxweynaha ayuu la shaqeynayaa marka suuragal ma aha in ra'iisul wasaaraha uusan ka amar qaadanin madaxweynaha waa haddii laga hadlayo nidaamka ri'aasiga ah oo madaxweynaha tooska loo soo doorto laakiin Soomaalida waxaa isaga qasan madaxweynaha hadda baarlamaanka ayaa soo doorta sababtu u soo dooranaya waa maxay dalkii baan doorasho laga qaban karin xaalad amni darteed laakiin weli dastuurka waddanka Soomaaliya waa ri'aasi madaxweynaha ayaana awoodda leh marka qaabka hadda Soomaalida ay u fikrayaan oo ah in madaxweynihii uu soo magacaabo ra'iisul wasaare uu haddana uusan awoodda ka qaadi karin habkaasi adduunku uma shaqeeyo marka waxaa fiican hay-adda fulintu inay midaysan tahay uuna xukumo ama madaxweyne ama ra'iisul wasaare dadka kalena isaga ay la shaqeeyaan hay-adda cadaaladda ama judiciary waxaa ka tirsan maxkamadahan meesha ku qoran waxaa ka mid ah maxkamadaha caadiga ah oo qaada dembiyada caadiga ah iyo dembiyada khaaska ah waxaa kaloo ka mid ah maxkamadaha maamulka marka waxay galaan muranada u dhaxeeya dadka iyo dawladda ama shirkadaha iyo dawladda sida arrimaha canshuuraha oo kale marka noocyadan maxkamadaha kuwa guud ee caadiga ah iyo kuwa maamulka waxay u qaybsamaan heer degmo heer gobol ilaa heer qaran waxaa kaloo jiri kara maxkamado gaar ah sida maxkamadda ciidamada oo kale iyo maxkamadda dastuuriga ah oo kale constitutional court arrinta marka muhiimka ah ee Soomaalida aad u khusaysa maanta waxaa weeye maxkamaddii dastuuriga ahayd baan jirin sababta aan loo sameynayninna waxaa weeye maadaama dalka uu dagaal sokeeye galay dagaalkii sokeeyena laga soo baxay madaxda hadda joogta ma rabaan hay-ad la xisaabtanta ama hay-ad lagu dacweyn karo madaxweynaha oo looga dacweyn karo falalka uu madaxweynuhu qaadayo ama tallaabooyinka uu qaadayo inaanay dastuurka waafaqsanayn marka tusaale ahaan laga soo bilaabo xilligii Sheekh Shariif xilligiisii wuxuu ku jiray dagaal waqtiga badankiisii
laakiin xilligii farmaajo fursad badan buu u haystay in madaxweyne farmaajo uu magacaabo maxkamadda dastuuriga ah baarlamaankuna ansixiyo 5 sano ma uuna samaynin haddana xasan sheekh baa yimid waxaan u malaynayaa isaguna ilaa hadda inuusan weliba bilaabin qorshihii lagu samayn lahaa maxkamadda dastuuriga ah sababtoo ah maxkamadda dastuuriga ah aad bay muhiim u tahay gaar ahaan wadamada siyaasadoodu ayna deganayn sida Soomaaliya oo kale sababta oo ah waa hay'ad looga dacwoon karo xukuumadda ama madaxweynaha ama wasiirada ama cid kasta oo khalad samaysay waa maxkamadda looga dacwoon karo marka maxkamadda dastuuriga ah aad iyo aad bay muhiim u tahay tusaale ahaan dalka aan dariska nahay ee Kenya dhowr jeer oo wadankaas qalalaasa siyaasadeed ay ka dhaceen maxkamadda dastuuriga ah ayaa kala badbaadisay marka Soomaalidu waxay u baahan yihiin waxyaabo fara badan inay uga daydaan Kenya marka inkasta oo awoodaha la kala qaybiyay haddana waxaa loo baahan yahay dadku inay bartaan dhaqanka ah inay sharci ku dhaqmaan sharcigana adeecaan waa in wadanka laga sameeyaa waxa loo yaqaano the rule of law oo ah dadku inay sharciga ku dhaqmaan oo markaasi qofna inuusan sharciga ka sarreyn karin dadkuna ay u siman yihiin sharciga dadku inay dhaqanka bartaan baa loo baahan yahay siyaasiyiinta waxaa loo baahan yahay inay arrintaasi dhug u lahaadaan oo ay ku xisaabtamaan in lala xisaabtami karo inay yihiin shakhsiyaad caadi ah oo ku takrifalka awoodda iyo ku xadgudubka dastuurka waxyaabahaas ay iska ilaaliyaan oo sababtoo ah waa inay ku talagalaan in la maxkamadayn karo tusaale ahaan dad badan oo Soomaaliya ayaa waxay khalad ka aaminsan yihiin madaxweynaha qaar baa waxay ku oranayaan madaxweynuhu waa calaamadda qaranka bay ku oranayaan calaamadda qaranka madaxweynaha wuu noqon karayaa marka uu dalka matalayo ee shirarka caalamiga ah uu joogo ama dalka uu joogo waa haddii uu sharciga ilaalinayo laakiin calaamadda qaranka madaxweynuhu ma aha madaxweynuhu waa shakhsi shaqaale ah oo ka mid ah dadka kale ee shaqaalaha ah waana inuu sharci ku dhaqmaa marka waa in lagu dhaqmaa waxa loo yaqaano the rule of law dadkuna ay bartaan madaxweynaha keli ahna ma aha xubnaha baarlamaanku waa inay ku dhaqmaan sharci waa in marka la joogo baarlamaanka xubnaha uu qabtaa waxa loo yaqaano xeer hoosaadka waxaad arkaysaa matalan xubno fara badan oo baarlamaan ah oo had iyo jeer ku dhex dagaalamaya baarlamaanka gudihiisa ama hadallo qadafa isu marinaya ama baarlamaankiiba aan imanaynin ama marka la marayo processka uu baarlamaanku u shaqeeyo hor istaagaya dadkaas oo kale sharcigii bayna ku dhaqmaynin macnaha sharcigii bay ka weyn yihiin waa dadkii la rabay sharciga inay ilaaliyaan waa meeshii wadanka laga xukumayay waa hay'addii la rabay inay la xisaabtanto xukuumadda waa hay'addii la rabay inay la xisaabtanto maxkamadaha waa hay'addii la rabay inay la xisaabtanto maamul goboleedyada laakiin hay'addiiba hadday fawdo tahay oo uusan ilaa hadda jirin qof baarlamaanka laga eriyey oo ilaa hadda uusan jirin qof baarlamaan ahaa oo dembi galay oo la xidhay uusan jirin macnaha waxay ka dhigan tahay fawdaduba waxay ka imanaysaa baarlamaanka sidoo kale fawdadu waxay ka imaataa marar badan hay'adda fulinta oo iyadu markasta ku talagasha inay awoodda oo dhan xayuubsato oo awooddii baarlamaanka uu qaato madaxweynuhu ama awooddii maxkamadaha uu qaato madaxweynuhu tusaale ahaan xilligii madaxweyne farmaajo oo kale markii la doortay guddoomiyihii baarlamaanka oo markaasi ahaa Jawaari ayay xukuumaddu u yeedhay waa xilligii xukuumaddii farmaajo markaasaa lagu yiri guddoomiye iscasil ma kula shaqayn karnee madaxweynihii qaranka oo la rabay inuu sharciga iyo nidaamka ilaaliyo ayaa guddoomiyihii baarlamaanka oo ah hay'addii kontroolisa xukuumadda intuu u yeedho buu leeyahay iscasil ma kula shaqayn karnee arrimahaas oo kaleeto waxay ka mid tahay fashilka Soomaalida haysta iyo khaladaadka had iyo jeer ay Soomaalidu sameeyaan madaxweynaha la soo dooranaya markii la soo doorto isla markiiba wuxuu bilaabayaa baarlamaankiiba inuusan wax dana ka gelin in madaxweynuhu uu bixiyo laaluush iyo cadaadis uu adeegsado oo baarlamaankii madaxweynuhu uu ka dhex shaqaysto oo markaas ay isku milmaan hay'addii sharci dejinta iyo hay'addii fulinta oo wixiiba madaxweynuhu uu madaxweyne ka noqdo isagoo madaxweynuhu markaa adeegsanaya awoodaha badan ee uu hay'adda fulintu ay leedahay oo ah lacagihii dhaqaalihii wadanka xilalkii
ciidamadii iyo amnigii waxaas oo dhan isagoo madaxweynuhu adeegsanaya ayuu markaasi madaxweynuhu wuxuu isku dayayaa inuu awoodda kala wareego hay-addii sharci dejinta oo la rabay inay iyadu la xisaabtanto xukuumadda. marka halkanna waxaan idinku soo bandhigay waxa dhacaya marka awoodaha aan la kala qaybinin. awoodaha marka aan la kala qaybinin waxaa dhaca waxa loo yaqaano fusion of powers oo ah awooddii inay hal hay-ad gacanta u gasho sida madaxweynaha oo kale sida ka dhacda qaaradda Afrika oo ah mar kasta madaxweynayaashu inay awoodda qaranka keligood isku soo koobaan oo baarlamaanku uu noqdo baarlamaan iska sacabiya wax awoodiya wax tabara midna aan lahayn waxa hay-adaha fulinta ay u soo jeediyaan oo iska qaata sida in maxkamadaha inay noqdaan maxkamada tacbaan ah oo awood aan u lahayn inay wax kala saaraan. maxkamadaha marka ay maxkamadeynayaan dadka siyaasiyiinta ah ama mucaaradka ah telefoon baa loo soo diraya waxaa leeyahay 10 sano ku xukun. maxkamada noocaasa weeyaan oo maxkamadduna markaa xukunkii ma diidi karto sababtoo ah guddoomiyihii maxkamadda shaqadii baa laga eryi karaa waa la xidhi karaa waa la dili karaa. marka dee wadankii maba ka jiraba rule of law ku dhaqanka sharciga ayaan ka jirin qaaradda Afrika gebi ahaanteeda soomaalidana hadalkeed badaa. marka hadda labadan jadwalka bidix waxaan ku soo bandhigay nidaamka dimuqraadiga ah marka awoodaha la kala qaybiyo. dhinaca midigna waxaan ku soo bandhigay nidaamka dimuqraadiga ah nidaamka ka soo horjeeda oo ah dictatorship system kaasoo ah marka awoodaha hal hay-ad ay haysato oo badana ah madaxweynaha. tusaale ahaan nidaamka dimuqraadiga ah ee dhinaca bidix waxaa ka jira xisbiyada waxay u samaysmi karaan si xor ah. waxaa la qabtaa doorashooyin xor iyo xalaal ah. waxaa jirta hay-adda doorashooyinka oo si xor ah u hawlgasha oo shaqadeeda u qabsata. maxkamadaha iyo hay-adaha cadaaladdu way madax bannaan yihiin. saxaafaddu way madax bannaan tahay. waddanka waxaa ka jira dhaqanka loo yaqaano ku dhaqanka xukunka the rule of law. dadku waxay leeyihiin xuquuqo iyo xorriyado fara badan oo ku qoran dastuurka oo aan la taaban karin. dadka oo dhanna waxay ku dhaqmaan sharci oo dadka caadiga ah marka hay-adaha dowladda ay adeeg u soo doontaan qofka shaqaalaha ah waxaa la rabaa inuu sharci ku dhaqmo oo uu yidhaahdo sharcigu muxuu ka qabaa qofkan waxa uu weydiinayo. laakiin hadda sida dhacda waxa weeyaan qofka shaqaalaha ah siduu rabo ayuu u dhaqmaa. nidaamka kelitaliska ahna xisbiyadu si xor ah uma samaysmi karaan umana hawlgeli karaan. lagama qabto doorashooyin xor iyo xalaal ah waaba haddii la qabta ah. haddii la qabtana waxay noqdaan doorashooyin bug ah oo ku shuba ah oo aan waxba ka jirin oo markaasi dadka wax xukuma ay ku shubanayaan doorashada. guddiga doorashaduna xor ma aha waxay ka tirsan yihiin hay-adda fulinta oo ah cidda wax xukunta ee kelitaliska ah. saxaafadduna xor ma aha. shaqaalaha dowladda iyo hay-adaha dowladdu kuma dhaqmaan sharci ee waxay ku dhaqmaan waxa dadka wax xukumaya ay doonayaan. madaxduna waxaa lagu dallacsiiyaa daacadda ay u yihiin madaxweynaha ama dadka markaas wax xukuma. muwaadiniintuna ma haystaan xorriyado iyo xuquuqo fara badan oo sharci ah oo dastuurka ku qoran oo la fuliyo ma haystaan. marka waxaasoo dhan ay dhacaan dowladdu markaas waxay noqon kartaa dowlad fashilantay waxaa loo yaqaano failed state oo hadda marka laga hadlayo tusaale ahaan loo soo qaato waddamo ay Soomaaliya ka mid tahay waxaa loo yaqaano dawla faashila. calaamadaha lagu yaqaano dawla faashila maxaa ka mid ah? waxaa ka mid ah dowladdu ma xukunto dhulka ay sheeganayso inay xukunto. ma xukunto dhaqaalaha, cashuur ma qaadan karto, nabadgelyadana ma xukunto, si toos ahna ugama taliso dhulka ay dowladda u tahay ee ay xukunto. dabiicadda labaadna waxaa weeye dowladdu ma xukunto xuduudaheeda oo waxaa jira gobollo iyadu ayna xukumin oo ay xukumaan hay-ado kale ama dowlado kale ama ururo kale ay xukumaan. dabiicadda saddexaadna waxaa weeye dowladdu ma awoodi karto inay cashuur urursato
ma fulin karto sharciga ama dastuurka waddankeeda lagaga dhaqmo. Sidoo kale waxaa waddanka ka jirta khatar amni oo dowladdu ma sugi karto amniga dalkeeda, xuduudaheedana ma kontarooli karto. Sidoo kalena waxaa ka jira buuq iyo fawdo arrimaha siyaasadda iyo arrimaha dhaqaalaha. Waxaana badanaa dhacdaa dowladdaas in dibadda laga soo farageliyo. Arrinta afraad waxaa weeye dowladda faashilka ah ma kontarooli karto laaluushka iyo dembiyada iyo sharci darrada ka jirta waddanka. Arrinta kale waxaa weeye waddanka oo maadaama waddankii uu yahay waddan fashilan, dadkiina ay dhibaataysan yihiin, waxaa waddanka ku bata barakacayaasha iyo dadka qaxootiga ah iyo dadka oo magaalooyinka u dega si habqan ah oo isku raran ah, taasoo keenta magaalooyinkuna inay fool xumaadaan. Marka casharkan ku saabsan kala qaybinta awoodaha, waxaan ugu talagalay in dadka Soomaaliyeed ay si fiican u fahmaan oo ay bartaan awoodahan sida loo kala qaybiyo iyo awoodaha aan la kala qaybin karin, sida xukuumadda oo kale awoodaheeda lama kala qaybin karo. Haddii kale xukuumaddii waxay noqonaysaa xukuumad faashil ah oo aan shaqadeedii qabsan karin. Marka maalin walba ay haystaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka, ama madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha, ama wasiirada iyo ra'iisul wasaaraha, ama wasiirada iyo madaxweynaha, ama se hay-addii fulintu aanan shaqayn karin oo maamul goboleedyadu ayna ka amar qaadanaynin madaxweynihii, oo madaxweynihiina aynu tixgelin siinaynin maamul goboleedyadii, oo degmooyinku ayna ka amar qaadanaynin maamul goboleedka. Waxaasoo dhan wuxuu keenayaa fawdo. Marka casharkeenni maanta intaas ayuu ku egyahay. Aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin inaad daawateen muxaadaradan ka hadlaysay kala qaybinta awoodaha. Wixii faallo ah iyo waani iyo wax sheega waxaad noogu reebi kartaan qaybaha faallooyinka ee bogaggeena YouTube-ka iyo Facebook-ga. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waa salaamantihiin. Maca asalaama.